والله wax cusub ah ilaa hadda ma jiraan. Shalay adiga 7 saac xilli ahayd ayuu bulshada Soomaaliyeed la wadaagay in gabadhii ay nabad qabto ay nooshahay ayna booliiska gacanta ku hayaan. marka aniga ruuxayga Facebook ayaan ku arkay arrintaas isagoo taliyaha booliiska macnaha ka hadlaya. wax dawladda ka tirsan ama mas'uuliyiin dawladda ah oo kula soo hadlay ma jiraan? maya wax ila soo xiriiroo yidhi gabadhaadaan ku haynaa ama kula kulansiinaynaa ama codkeeda kuma qashiinaynaa ma jiraan haba yaraatee. marka ilaa iyo haatan xogta aad hayso gabadha halkay joogtaa baa lagugu sheegay? Cabdinuur nin la yidhaa oo ah agaasimaha maxaan ku rahaa madaxtooyada ayaa igu yiri inaan kula kulmaa rabaa, waayo isaga maalin dhexaas la yiri 3 beri muddo ah markii aan idaacadan ka ila soo hadlay igu yiri 3 beri aan rabaa inaad isiisid macnaha markaa wixii macluumaadaha iyo caddeymihii aan hayay dhan aan la wadaagay gurigiisaan ku ballanay oo aan kula kulmay. marka taas markay dhacday 3 beri shalay ku ekeed iyo sabcad ugu dhex waxaad ii imaanaysaa 1 saac galabtii. waxaan rabaa inaan macluumaadkaas iyo gabadhaasi okay waan ku imaanaynaa. marka aniga iyo familkiiba badan xaafadiisa ugu tagnay kale isagana qofka mashquulsan oo ahaa. adiga xalay wuxuu noo imaaday gurigiisa cabaaran saa u fadhino u sugeynay 3 saac oo adiga xeer dhiman noo imaaday. marka wuxuu igu yiri gabadhaadi way baxday oo diyaaradda Qatar Airways ayay raacday Copenhagen ayayna 8 saac caawa ku aadan tahay. okay marka telefonka markaan ku hadlayna sidii wuxuu igu yiri gabadhaada anaa ballanka qaadaa inaan kula kulansiyo xataa bay dhacday in macnaha la wado waxaan kaa ballan qaadayaa gabadhaada iyo adiga oo aan is arkin inay wadankaas ka bixin. marka waa ku kalsooneen runtii hadalka Cabdinuur, laakiin xalay markuu yiri gabadha oo see ku baxday aan ku yiri soo adiga lahaa gabadha anaan kula hadashin ma baxayso. markaas walaalay aniga waxaan kuu sheegayaa in gabadhaada ay baxday 8 saac habeenimo ay Copenhagen ku aadan tahay. markaas ogo bas waan ku yiri waan ka tagnay. maanta waxaan sameeyay waxaan raadiyay dadka shaqeeya airportka aqaano ayaan weydiiyey aan ku iri Qatar Airways maanta Talaadada Arbaca maanta shalay Talaadada maanta Talaadada ah may baxdaa waan ku iri baaro. waxaan soo ogaaday inaysan ka shalay flight Qatar leeyahay dhanba aysan ka bixin wadanka Muqdisho wadanka Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho aysan ka bixin Qatar Airways. saakay ayaan Cabdinuurkii waxaan u qoray message waxaan ku iri Cabdinuur dhageyso shalay waxaad igu lahayd gabadhaadii Qatar Airways raacday Copenhagen 2 saacadood ay ku aadan tahay. waxaana soo ogaaday in Qatar aysan shala bixin ay ku dhacday war aan macnaha hubanayn inaa qofka maqayayn kale geerimina kuma haya mana layla hadalsiin mana arkin saas ay u qasabtay. marka maanta inaan intaan soo akhristo haddana idaacadii ay raado bulshada Soomaaliyeed shala waxaa loo soo bandhigay in gabadhayda dad qabto oo gacanta ay ku hayaan anigana aanan arkin leena hadalsiinin. taasaan marka anigana Soomaalida la wadaago maanta. kii hore ma gabadha ma Denmark ka timid? Denmark kasoo guurnay. goormeed soo guurteen? sanadkii hore kasoo guurnay Denmark. ma waxaa jira tuhun ah ama tuhun aad qabto inaysan gabadhu dalka ka bixin oo ay weli dalka joogto? maba caddayn kara maxaan ku caddeeya walaal qofka haddii xataa lagu yiri qofkaagi anin gabadhayda anaaba raalli ka ah inay laabato xataa hadday laabato qof weyn ha laabato maba la diidan. laakiin waxaa la rabaa in mawaaridkii intaas balanbalayay irdadii hayaadkii ka tegay cunto aan cunaynin maalin iska dawareegaysa CID iyo xarumaha amniga in macnaha la yidhaahdo gabadhaadii way baxday maxaa caddeynaya bulis baa rabaa marka gabadhayda inay baxday anaaba raalli ka inay ka baxda wadankaas aa lagu qabsanayo. ugu dambeyntii gabadhu imise jir bay ahayd? lagu qanciyo. ugu dambeyntii gabadhu imise jir bay ahayd? maxayse tahay tallaabada ugu dambeysa oo aad jeclaan lahaydeen inaad qaadaan? sanadkan ay tiin gabadha 8 sano jirta nidan kale oo booliisku leeyahay gabadha maamada 10 ay sheegtay aniga gabar da'deeda hore uma sheegin. qofkana waxaa fiican markuu qof weyn oo mas'uul yahay hadalka uu dadka bulshada la wadaagaa inuu ka fiirsado. maamada oo sheegtay gabadha da'deeda 10 sano inay jirto 8 sano jirta aniga da'mada ka hadlin mana carabaadan afkeygana ma soo marin. marka waxaan jeclaan lahaa gabadhaydii in lay maqashiyo codkeedii ama aan arko. ceeb maa gabadha inay wadankeeda midda kale waa fahmi karaa carruur qurbaha ku koray oo 12 sano ku gaaray wadankaas ay ula qabsadaan way adag tahay inay noqdaan wax ceeba ma aha wadankooda ku laabtaan mafahant. laakiin waxaa haboon waalidkii keenay oo waqtigii juhdi iyo kharash kusoo bixiyey oo wadankoodii daljecel iyo dadjecel ilmihii darteed ugu soo celiyey in sidaan loogu sameeyo dawladii intay carruurtii qabato oo xataa carruurta gaalada markay kaa qaataan lagama yaabo cunugaaga in lagaa qariyo muddo intaa la eg. waa lagula hadalsiinaa cunugi markii xataa carruurta laga qaado arka dad badan carruur laga qaado waa lagula hadalsiinaa shira lagu qabanaa adii carruurta waxaa laisku daa in laga dhexdhexaadiyo. marka arrintaa waxay caqabad iyo ceeb iyo dhawrjad xataa ku noqonaysa dad badan oo Soomaali oo soo xirxiran hadda oo rabo inay wadanka carruurta u soo celiyaan dhaqankoodii iyo diintoodii ay baraan. runtii hakada gelinaysa arrintaas dawladdan waxaa fiican inay arrintaa wax ka qabato. Cabdilxafiid horta waxaan ka dhageystay waraysiga dayladhaanta hooyo Amran Xalane iyo ayeeyo case
TV-ga dalsan kadibna waxaa xiriir ila soo sameeyey nin TV-ga agaasimo ka ah kadib gabadhii waan la xiriiray waxaan ku yidhi ninkaasaan ahay dhibkaa inuu ku gaaray aan la socdaa eedeymaad la ujeedisay ciidamada madaxtooyada waxaan jeclaan lahaa inaan is aragno oo meesha aad ku qanacsan tahay isku aragno waayo yani eedeyn la eedeeyey askari madaxtooye ilaaliya sumcad daro keliya ciidamada kuma ahe wuxuu ku yahay dowladnimada. marka cabdinuurow eedeyntu maxay ahayd? eedeyntu waxay ahayd inay gabadheeda meel tacliim dugsi ah kasoo baxday gabdho kale ay duursadeen kadibna askar madaxtooyada ka tirsan gabadheeda ay kahaysteen gabadheeda inay tuhunsan tahay inay nimankaa meel ku qarsanayaan ay haystaan. hooyadu mar ay siisay idaacaddan VOA-da waraysi waxay sheegtay cabdinuurow in adiga aa wada hadasheen oo aad ku wargelisay inay gabadheedii bad qabto arrinkaasi ma jiraa? waxaa ka horreeyey inaan u yeeray gurigeyga isla nimid si faahfaahsan kiiska uga maxay ahayda degtay kadibna hooyo amran waxay igu wareejisay 3 teleefon oo laba kamida ay ku sheegtay inuu leeyahay sarkaal ka tirsan ilaalada madaxtooyada midna ay leedahay gabar kamid ahaa 6 gabdhood ee gabdhaheeda gabadheeda lasoo baxsaday oo markii dambe la helay oo ayada lafteeda waa TV-da ka daawateen ayadoo sheegaysa in gabadhaasi ayada ay wada baxsadeen gabadhaana ay safaaradeeda iyo howlaheeda sii jira gashay. waa tahay marka adigu marnaba waxaad leedahay uma aad ballan qaadin inay gabadheedii bad qabto oo aad tusi doonto miya cabdinuur? anigu waxaan ballan qaaday inaan dadaalayo ciidamada gabadha lagu eedeeyeyna baaritaan lagu samaynayo allaale dadaal ahan ka geysan karana inaan ku bixiyo sidii gabadhaa loo heli lahaa weliba waxaan ku idhi anigu maanta idinlama macaamilayo sarkaal madaxtooye ka tirsan keliya waxaan idinla macaamilayaa qof qoyskiina oo kale ah. marka sidaad adiguba sheegtay gurigaaga ayay kugu yimaadeen oo aad ku kulanteen markii aad guriga ku kulanteen hooyo amran waxay sheegtay inay filaysay inaad gabadhii tusayso oo aad og tahay meesha ay joogto laakiin waxay tiri waa markii labaad waaye waa markii labaad waayahay hore intaasaan ku kala tagnay teleefanadiina waxaan la wadaagay hay-adaha amnigaan la wadaagay si loo dabagalo 3 telefoon oo kollay laga heli lahaa cadeymaha ku saabsan gabadha waayo mid kamida waxaa iska lahayd gabar lasoo baxsatay gabdhaha 6 ah oo gabadheeda ku jirto oo markii dambe dib loo helay magaalada gudaheeda laga helay markii la wareystay oo idaacadda qaranka ay wareysatayna ka fogeysay laakiin xogta ay hooyo amran isastay iyo waxa ay gabadha idaacadda ka sheegtay way kala duwanaayeen. waa tahay cabdinuur waan fahmay markaa si ay warku u caddaado marnaba ka cabdinuur ahaan uma aad ballan qaadin qoyska inaad gabadhoodii tusi doonto mase jirtaa hooyadu arrinkan ay sheegtay ay tiri cabdinuur baa igu yidhi diyaaradda qatar airways bay raacday salaasadii waxaanan soo ogaaday salaasada inaanay qatar airways ka bixin muqdisho. 3 qodob waxba kama jiraan miya markaas? maya qatar airways iyo waxaa idaacado kalaa qoray aniga kumaana bixin aniga waxaan ku yidhi gabadhaadii waa la helay waxayna ku jirtaa airboortka maxay ahayd iyo xarunta xalane waxaana la wareegtay safaaradda denmark waxaana rajeyneynaa maxay ahayday inaan ama gabadhaada kula hadashiino ama aan garoonka kugu geyno. waxaan helay teleefonka qolada qunsuliyadda ka shaqeeya denmark waxay ugu dhaheen arrintan waa arrin xasaasi ah safiirka keliya kaala hadli kara gabadhii safiirada aheedaan wacay waxay igu tiri cabdinuur xamaraa joogaa waxaanan la joogaa gabadhii waxaanan rabaa inaan doofiyo waxaan ku yidhi gabadhaas waa gabar anka oo da-deeda 17 iwaanidkeed ku sheegeen xagna uma lihidiin gabar da-daa jirta inaad kaxaysataan waxay igu tiri gabadhaas 17 jir ma aha waa 18 jir waana qaangaar caqli iyo garasho ku filanna way leedahay denmarkna way ku dhalatay sharcigeedana waan wadaa wax dambi ana dalkiina kama gelin waalidkeedii ayadana inaad isu geysaan shaqadiina ma aha marka haddii dambi aad ku haystaan gabadhaana kusoo dacweeya haddii aada ku haysanna gabadhaan anigu galabtaan diyaaradda Kenya Airways saaraya waxaanan u kaxaynayaa meeshii iyo wadankii markii hore 2 sano ka hor laga keenay. marka adigu goorma ayaad ogaatay in ay gabadhu xalane ay ku hayso safiirka denmark u fadhiya Kenya sidee bay se gabadhu xalane u gaadhay? gabadhan markay xarunta kasoo fakatay waxaa gacanta ku dhigay xarumaha arrimaha xuquuqul insaanka iyo maxay ahayd haweenka iyo ilmaha baxsadka ah gacanta ku dhiga ayagii baa meesha la galay ayagii waa 2 bilood meesha ku hayay 2 bilood iyo xoogaa reerkan meelaha ay ka raadinayaan iyo ciidanka lagu wareegeysanayo waxbaba kama jirinba sababtoo ah gabadhan aniga safiirkii markaan la hadlay waxay igu tiri 2 bilood iyo barkii lasoo dhaafay gabadhan annagaa gacanta ku haynay. marka waxa aad ii sheegaysaa in hay-ado u dooda xuquuqda aadanaha oo jooga magaalada muqdisho ay gabadha u tagtay kadibna ay xerada xalana geeyeen ma saas bay wax u dhaceen? markay soo fakatayba meeshaasaa la geeyey xogta aan hadda helayno safiirka denmark fadhigeeda nairobi yahay iyo soomaaliyana ku magacaabanna ay ii xaqiijisay.
marka iminka amran gabadhii ay dhashay xaggee ayay joogtaa cabdinuurow? waxaan la xiriiray qolada immigrationka, waxay ugu dhaheen gabadhii waxaa la keenay garoonka markii la keenayna waxaa hor istaagay booliiska soomaaliyeed. janaan zakiya waxay ku andacootay in gabadhaas ay tahay gabar da-yar, dalkana aan laga saari karin ayadoo waalidkeed la hadlin, laakiin safiirkii denmark waxay hor dhigtay warqadihii dhalashada ee gabadha oo muujinaysa inay sanadkii 2000 maxay aheyd koodii dhalatay 18 jir iyo xoogaa iyo bilo ay jirto. waxayna u sheegtay muwaadinkan waa muwaadin denmark u dhashay oo dalkeeda u laabanaya oo wadankan jujuub lagu keenay oo dhaqan celin loo keenay oo hadda dadkeedii iyo waalidkeed taxfud ka ah. taliyuhuna waxay ka codsatay safiirka inay gabadha gooni u wareysato. gabadhii markay wareysatayna waxay ka dhaga areegtay in hooyadeed lala heshiiyo, in waalidkeed la tuso, in xitaa reerka iyo gabadha inta la wada heshiiyo la heshiisiiyo ayagoo heshiisa communitigeeda looga qaaday baxdo. laakiin safiirkii waxay ku adkaysatay gabadhaan sharci ka hor istaagaya gabar qaangaara oo da-deedu dhamaystirmatay oo dalkii ay ku dhalatay in noqonaysa inaysa dowladda soomaaliya u oolin, dambi hadda lagu hor istaagana oo looga celiyo safarka inaysan jirin. markaas waaye marka aan maxay ahayday aan reerka u sheegaya gabadhii in lala tegay maanta.